xidhnow badda cas 24 TV ifkauga soo baxay anigoona facbaran nicawdiisa udugale kiigu qariyo warigaygo ifkauga soo baxay anigoona facbaran nicawdiisa udugale kiigu qariyo bartamaha qarnigii 19 kadib dowladda Ingiriiska oo gumaysan jirtay dhulka Soomaaliland markii ay u jeexday xuduudo iyo xad u dhaxeeya dowladaha Soomaaliland, Soomaaliya, Djibouti iyo Itoobiya. inta wixii ka dambeeyay qarannimada Soomaaliland oo ku timid afti dadweyne waxay Soomaaliland cilaaqada dhinacyada arrimaha bulshada, siyaasadda, nabadgelyada iyo isu socodkaba la lahayd dalalkaasi ay dariska la tahay. barnaamijkeennan waxa aynu isu dul taagi doonaa muxuu yahay xidhiidhka bulsho ee ka dhexeeya shacabka Soomaaliland iyo shacabka dalka Djibouti dowlad ahaan iyo dad ahaanba. haddii ayaan dabaylulin awood male naftaydu yee markaan urka hooyadii ifka uga soo baxay anigoona facbaran Soomaaliland oo ay majaraha hogaamineed u soo qabteen madax kala duwan marka aynu ka soo qaadano kuwii ugu dambeeyay sidee ayuu ahaa cilaaqaadka iskaashi ee u dhaxeeyay labada dowladood. inaan isku yaarsamo wixii mandaqadan ku wada noolay ka jira madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geele waxaan ku maqleen dalka Djibouti halkaas oo aanu martiqaad ka helay madaxweynaha Djibouti aanu ku kulansanayn waxaan mahadnaq balaaran aad iyo aad u balaaran u soo jeedinayna madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geele iyo dawladdiisa oo mar walba door weyn ka qaata wada hadalada iyo suuqka iyo mandaqada sidii dadka isugu soo dhaweyn lahaa aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa dadweynaha iyo shacabka Djibouti madaxweynaha Djibouti iyo safiirka soo magacaabay aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa una soo dhaweynaa Djibouti iyo Somaliland waxa weeye laba raas oo walaalo ah oo degan oo ay noloshu isku xidhay oo wadaaga dhibta iyo dheefta marka muusika weyna labada nin ee walaalaha ka weyna mid ku degaa reerka ka yarna bidix marka labadii walaalaha iyagoo labada raas oo xoolahoodii kale oo taladii qoyska kale leh haddana nolosha adduunka iyo waayaheeda oo way cibsana waa isku mid marka labada raas bay nahay oo nolosha isku xidhay taariikhda xusaysa weligeedba maanta si loo kala garan karo loo kala sooci karo dadka shacabka reer Djibouti iyo shacabka Hargeysa ku dhaqan iyo Somaliland way adag tahay dadaaladaasi lagu horumarinayo xiriirka labada dowladood ee Somaliland iyo Djibouti waxay sababtay in laba shacab oo xigta iyo xigaal daris wadaag ahi wax badan iskaga xidhan yahay si taasi loo xoojiyana waxay dowladda Djibouti ka furatay Somaliland safaaradda fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa halka ay taadhigeedana Somaliland ka furatay dalka Djibouti safaaradda fadhida Somaliland safaaradda dalka Djibouti ee fadhigeedu yahay Somaliland maxay tahay adeegyada kala duwan ee ay u qabato muwaadiniinta reer Djibouti ee ku nool ama ku sugan guud ahaan geyga Somaliland iyo muwaadiniinta shacabka reer Somaliland ba xiriirka Somaliland iyo Djibouti waa xiriir taariikhi ah ka dhaxeeya walaaltinimo taariikhi ah ka dhaxaysa wada shaqeyn baa naga dhaxaysa iyo daris wanaag baa naga dhaxeeya inaan ka wada shaqeyno wixii labada wadan dan u ah Somaliland madaxweynaheega Muuse Bixi iyo xukuumaddiisa shaqooyin badan baa naga dhaxeeya oo walaaltinimo ah iyo daris wanaaga iyo horumarka sida shicibka reer Somaliland iyo shicibka reer Djibouti waa dad mid ahaatay oo walaalo ah oo wax mid ahaatay ah waxaan had iyo jeer ku dadaalaa walaaltinimada iyo daris wanaagga ayaan ka shaqeynaa haddaan kaaga sii dheeraado waxyaabaha badan ka shaqeyno waxa weeyaan inaan ka wada shaqeyno wixii labada wadanba wax yeelaya dhaqaalaha noqoto iyo security ha noqoto ama nabadgelyada ha noqoto iyo isku furnaanka baayaca mushtarka ha noqoto iyo horumarka labada wadanba ayaanu ka wada shaqeynaa madaxweyne Muuse Bixi iyo xukuumaddiisa
iyo jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle iyo xukuumaddiisa waxay ka wada shaqeeyaan caawimaadda hadday noqoto xagga waxbarashada xagga ciidamada mar dhaweed ciidamadii madaxtooyada somaliland waxaa lagu soo tababaray jabuuti waxyaabo badan uu ka wada shaqeyno xagga securityga ha noqoto xagga maxaan ku rahdaye baaca mushtarka ha noqoto ganacsiga oo isdhex mara oo badeecaduhu ay si xora ay isu dhex maraan ayaanu ka shaqeyn hadday noqoto xafiiska jamhuuriyadda jabuuti ee ka furan somaliland waxaanu u joognaa horta waa reer jabuuti shicib weynaha jabuuti muwaadilka reer jabuutiya daafaha somaliland meeshu doonaba ha ka joogay ayaanu u adeegnaa ta ugu horeysa awal toole xafiiskani ma jirin madaxweyne ismaaciil cumar geelle iyo xukuumaddiisu waxay hirgeliyeen si ay ugu adeegaan ummadooda ummaddu waa reer jabuuti annakana waxaan amar uu nagu siiyey madaxweyne aniga khaasatan wuxuu amar igu siiyey inaan u adeego shicib weynaha ka soo jeeda jamhuuriyadda jabuuti ee ku nool daafaha somaliland waxaan bixinaa awal toole qofka waxaan ku dhasha agdanasanskii baan siinaa dhalashadii baan u cadaynaa kuwii la-aa ee intaa oo sannadood ayna jirin la siin jirin caddayn baan u samaynaa oo warqadahoogii sharcigoogii xaqoogii bay helaan ta labaad kii ku dhibaataysan wixii aan kala qaban karna kala qabanaa kii aan evacuation u samayn karayno aan caafimaad degdega u baahan ee wax degdeg iminka diyaaradoo kale waxa dhacday koofi disnef baa jira iminka waa la kala xidhmay adduunkii oo dhan shalay toolo diyaarad baa timid annakaa dalbanay si ay muwaadiniinta reer jabuuti u qaado mar horena way qaaday ya oo waxay qaaday 230 bay qaaday shalayna 220 bay qaaday adeegyada oo dhan baan u fulinaa hadday noqoto shicib weynaha somaliland hadday noqoto waxaanu qabanaa ka buka waanu gargaarnaa ka wax la soo baraya waanu samaynaa ka maxaan ku raadayay tababarkii waa ninka og de waxyaabo badan aanan de soo koobi karayn baan ayaanu qabanaa somalilandna waa dadka iyagii waxaa ku lahaatee aan odhanayo daris wanaagga ha laga shaqeeyo daris wanaagga ha la dhowro ixtiraamka labada xukuumadood iyo labada madaxweyne ha la dhowro taasi tu la mid ah safaaradda somalilan ee fadhigeedu yahay magaalada jabuuti ayaa iyaduna adeegyo kala duwan waxa ay siisaa ama ay u qabataa muwaadiniinta reer somalilan ee ku sugan dalkaasi jabuuti iyo shacabka reer jabuuti ee safarada kala duwan ama danaha kuwa ganacsi kuwa dhaqaale u yimaada guud ahaanba geyiga somalilan safaaraddu runtii waxaan qabanaa waxyaabo badan waxaa ka mid ah fiisooyinka oo kale aan bixinaa waxaan bixinaa go home-ka sida imika mar dhaweeda arkaysaba waxaa joogay dad go home loo jarayay taa ka kaalay waxaan sameynaa xiriirka labada dal xagga diblomaasiyadda xagga siyaasadda waxaa jirta dowladda jabuuti waxaan wadaagnaa xuduud runtii waxaa naga dhexeeya amni waxaa naga dhexeeya xiriir dhaqan dhaqaale waxaa naga dhexeeya mid walaaltinimo waxaa naga dhexeeya mid jaarnimo waxaa naga dhexeeya mid runtii had iyo goor soo jiraan ahaydoo ah dadka xaggaa dega somalilandna way degaan dadka halkan somaliland degana jabuuti bay degaan marka waxa weeye waa ul iyo deerkeed baan anigu oran karayaa safaaraddan jabuuti runtii markii aan tegey xiriirka jabuuti somaliland runtii aad iyo aad buu sii kordhay horena wuu jiray laakiin waxaan idiin sheegayaa runtii maanta xiriirku inuu meel wanaagsan marayo shacabka iyo dowladda dalka jabuuti oo mar walba dareensan duruufaha nololeed ee la soo darsay walaalahooda somalilan ayaa mar walba la hilmaami karin doorka ay ka qaataan caawimada iyo taakulaynta masiibooyinka dabiiciga iyo abaaraha waxaana madax kala duwan oo ka wakiila shacabka iyo dowladda jabuuti ay marar badan taakulooyin aan cadad lahayn soo gaarsiiyeen bulshada reer somalilan oo ay la soo darseen abaaruhu maanta waxaan ku faraxsanahay halkan in ay noo suurto gashay in aan dad iyo dowladba wixii aan ka helay aan soo ururinay raashin dan ilaa muxuu ahaa 10,360 qoys wax siin kara kaasina ay tahay un tabaruc oo shicibka Jabuuti iyo dadkii daneynayay danaha labada dal ay goosteen in ay la qaybtamaan dhibaatada dalkooga walaalahooga dhibaatada abaartu ku habsatay xoolihiina gabaabsi markay noqdeen dadkina ay dhibaato badani ay soo food saartay waxaad arkayseen halkan waxa weeyaan 44 baabuur oo kiiba ugu yaraan 20 ilaa 24 sido oo loogu talagalay inuu dadka gaarsiiyo
waxaanan u mahadnaqayaa horta madaxweynaha labada madaxweyne Djibouti iyo Somalilandba iyagii oo arrintan ugu garab galay oo noo fudeydiyay say arrintaasi ay horgeli lahayd si hagar la'aana si walaalnimo ay ku jirto si tustay in walaaladood Somaliland oo dhul iyo dhiigba ay wadaagaan in ay u damqanayaan ayana tusaan qof walba wixii uu hayay iyo waxaan ka go'aynbaba uu noo dhiibay taay waxa ay turjumaysaa markhaatina ka tahay walaalnimada qotada dheer taariikhiga ah ee ka dhaxaysa labada shicibka reer Somaliland iyo shicibka reer Djibouti. Farxad weyn bay noo tahay maanta inaynu halkan iskugu nimaadno Lowyacaddo oo aanu idinkaga gudoono deeqda miisaanka leh ee culayska leh ee arkaysaan gaadiidka 44 baabuur oo waaweyn oo raashina oo ilaa 10,360 qoys gaari doona insha Allah kariim in ay soo ururiyaan shacbiga reer Djibouti waliba muddo kooban runtii iyaga oo u damqanaya dadkooga runtii abaartu ay waxyeeshay ee dhinaca Somaliland waa dareen runtii walaaltinimo waa dareen wada dhalasho waa dareen nolol wadaag aad iyo aad baan runtii ugu farxaynaa waxaan aad iyo aad runtii u hambalyeynaya madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa Khadra Maxamuud Xayd oo runtii sameeyay dhiirigelinta hawshaasi inay halkaas soo gaadho la'aanteedna runtii aanay qabsoonteen horta maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin goobtan aan joogno maanta waxaan kula wareegaynaa waa deeqdii walaalaheena reer Djibouti ee shacabka reer Djibouti iyo dawladooda oo ay maanta wufuudaasi horkacayso ay keeneen magaalada Lowyacaddo deeqdaas oo sii socon doonta dhanka Somaliland ilaa iyo saaxil ka gaari doonta runtii horta maanta waxa farxadiya inay daartaasi daartan caawis labada daarood isku muuqda inay maanta is caawiyeen markuu jaarku isku naxay is xasuusto ilaahayna wax xasuustaa inagana waxaan leeyahay walaalahay halka aad ka soo saarteen ilaahay badal khayr qaba haydii geliyo annana insha Allah biidmillaahi kariim kuwaanu gaarsiinayno maatideenu wadno waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay nagu astiro oo iyagana si fiican u gaadho runtii aad iyo aad buu mahadsan yihiin waxaan salaamayaa labada dawladood oo iyaguna hawshan fudeydiyay labada madaxweyne iyo mas'uuliyiinta kale ka sii hooseysa sida sharafta looga shaqeeyay ayaan iyagana aad iyo aad ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay ilaahay haydi barakeeyo ilaahay haydi karaameeyo halkaad ka soo saarteen ilaahay wax khayr qaba idinku bedelo Ismaaciil Cumar Geelle soo baxay oo madaxweyne noqday waxaanu qabnaa ila kuma maqanayna Djibouti hawl bay ku jirtay hawsha annaguna xaggaas qalbigaanu kala jirnay markaanu Somaliland joognay qof haliyay ah oo dalkiisa hagaajay isaga cid kalena wax tari kara إله نور كركان إله نور كركان أفوين كناغا طلقا سمالي من نور كركان أرلغا دور نور كركان إله نور كركان إله dhanka kale waqtiga ay ku habsatay duufaantii sagar deegaano ku teedsan dhulxeebeedka ay Somaliland xuduudaha kala wadaagto dalka Djibouti ayaa dawladda dalka Djibouti iyo shacabkeeda oo isku duuban si walaalnimo oo damqasho leh uga qayb qaateen wixii ay ku tari lahaayeen dadkii ay saameynta baan ku keentay duufaantaasi taasi oo barakicisay kumanaan qoys oo cidlo ka istaagay hoyga iyo hantidii xoolaha ahayd ee gacanta ugu jirtay anigoo taliyihii ciidanka madaxtooyada madaxweynaha afariin inaga sida ina waxa weeyaan madaxweynuhu musiibada dhacday inuu inaga soo tacsiyeeyay horta dabadeedna waxa weeyaan inuu waxa weeyaan ducooyin soo maro ina waxa weeyaan ilaahigay inaga gargaaro intii naga dhimatay intii dhaawacana ilaahay shaafiyo fariinta baan horta madaxweynaha inaga siday war la helaa tala la helaa waxa weeyaan dhibaatada waxa weeyaan
intiina halkan joogtay waxa weeyaan annagaa ka xumayno waxa weeyaan wax allaah waxaad ku sugan tihiin degmada intaa leeg waxay ku sugan tahay oo hadal lahayn oo waxa weeyaan masiibadana ay ku dhacday oon hadal weyne waxa weeyaan urku talanaga waxmed ma jirin iminkaasi waxa weeyaan dunya waa la helaa wixii nool waxa weeyaan sidii gurmadkeena bari iyo galbeedba sitaan ka soo gaarsiin doonaa iyaan ka soo gaarsiinayna haddii ilaahay idhaaho marka hore ilaahay ku mahadina marka labaad waxa maanta noo fududeeyay hawsha in halkaan nimaadno oo indhahay ku aragno dhibtii dhacday madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo naga caawiyay runtii maanta inagoo saa sheegteen dawladdeenu aan lahayn helicopter lahayn ama diyaaradaha qumaati ku kacaya dhulka loo gaariyo waxa naga caawiyay jamhuuriyadda Jabuuti madaxweynaha cimrigiisa Allah rajeeyo Ismaaciil Umar Geelle waxaan la socdanaa maanta hawsha laba habeen naga shaqeynay Maxamed Jaamac walaaleen waxa asiibay ibtilada maanta joogta geedi dheer baan soo galay hawshii kalena waa sugaysaa inka qaar hawl baan sugaysaa waxa la yiraahdaa wax la raajaro kuma samo hawsha waxba inagu raajin mayno waayahay halkan waxaan inii wareejinayaa deeq ka kooban gurmadkii musiibooyinkii ka dhacay degmooyinkan gargaara lughaya xeebta gurmadkii u horreeyay ee gargaarka aynu dhulka soo marinay ayaa aan halkan iga wareejinayaa oo ka kooban 2300 oo qoys kolkaa waxaan jeclaa inaad iga guddoontaan waa mid saacadii loo baahnaa soo gaadhay wad arkayseen gurmad markii la geli kari waayay lughaya cidii ugu horeysay jawaab ka bixisay warbixin ka keentay waxay ahayd xukuumadda Jabuuti taasi waxa keentay waxa weey walaaltinimada iyo dhalashada muddadii yareedii aan joogay malaa 3 bilood 4 bilood aan dhameyn baan joogaa waa deeqdii labaad ee aan anigu gudoomo gobolkan ee Jabuuti soo dirtay iyo madaxweynaheedu aad baan uga mahadcelinay waxa inta dheereed waa runee say odayaashu sheegeen 2 saacadood baa markii uu duufaanku dhacay lala meesha la yiraahdo lughaya way ka baxsanayd khadka adduunkaba waxa helay diyaaradii ay soo dirtay dawladda Jabuuti iyo madaxweynaha ka yahay Ismaaciil Umar Geelle iyada ayaa lagu ogaaday wax nool iyo wax dhintay inay jirto inay weli nooshahay iyo inaan wax ku noolayn bayada ayaa ugu horeysay wixii ugu horeeyay lagu ogaaday dhinaca baahiyaha caafimaadka dawladda Jabuuti waxa ay door lixaad ka qaadatay xarumaha adeegyada hooyada iyo dhallaanka iyadoo deegaano kala duwan oo Soomaaliland ah ay dawladda Jabuuti ka hirgelisay xarumo caafimaad oo ay ka mid yihiin xanaanooyin lagu daryeelo caafimaadka hooyada waqtiga ay uurka leedahay iyo umusha waxa farxad weyn oo ah furitaankan dhakhtarkan loogu magac daray ducaale inaan maanta bulsho ka ahaado waxaan u mahad celinayaa ururkii dhisay oo la yiraahdo SOS rural waa urur reer Jabuuti shacabka reer Jabuuti iyo xukuumadda Jabuuti intaba waxaan u mahad celinayaa deeqdaas ambalaasyadii waa ku halkaa tuban dhakhtarka waa ku afuray beerisa waxay ka dhiseen gas house islaam food waa dhakhtar weyn oo muhiim ah wasaarad ahaanna marka mahadnaqa intii ka soo shaqaysay iyo intii ka dambaysay iyo guud ahaan shacabka reer Jabuuti gaar ahaan maxamed Saamac oo aad iyo aad uga shaqeeyay hawshaas oo isagu sababteeda ugu weyn leh runtii magaalada ka baxo isbitaalka Ducaale maanta maxalid ka jiray qalabayntiisa iyo shaqaale keenistiisa annaga mas'uulka dhinaca kale waxay walaalaha dalka Jabuuti iyagoo ka duulayay iskarabtaaga walaalahooda Soomaaliland waxay ururada bulshada rayidka ah ee shacabka reer Jabuuti ay goobo caafimaad oo kala duwan ku wareejiyeen gaadiidka caafimaad ee loo yaqaan ambalaasyada deegaanka Geerisa, Saylac, Xariirad iyo Lughaya
waxaana saraakiil uu horkacaya korneyl maxamed jaamac ducaale oo ka socda dowladda jabuuti oo wakiil ka yahay uu si rasmi gacanta uga geliyey wasiirkii hore ee wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda somalilan mudane saleebaan axmed ciise xaglatoos oo wakhtigaasi ahaa wasiirka wasaaradda caafimaadka oo isaguna kusii wareejiyey madaxda deegaanadaasi kala duwan. waxaan anoo ku hadlaya magaca ururka SOS Reader oo reer Jabuuti oo deeqaha bixiya ambalaasyadani inaan aniguna maftaax inaan guddoonsiiyo wasiirka caafimaadka Soomaaliland Saleebaan ciise oo ku magac dheer Xaglatoos sida qoryaraha ugu ما شاء الله باورka ambalaska ee degmada xariir loogu deeqay dadka reer Jabuuti deeqdii koobaadna maaha waa inaan soo badnayd waan uga mahad celinaynaa deeq marka la dhibo loo sarakac waan u sarakacnay waan inaga guddoonay maayarkaa guddoomay wasiirkaa guddoomay guddoonku baan israacsanaynaa waan guddoomay markii koowaad maaha deeqda noo timid markii labaad maaha markii saddexaad maaha waa tii aan isku lahayn abiidada ahayd Jabuuti iyo Somaliland waad soo jireen bay ahayd waxaan leenahay waan ka faa'iidaysanaynaa wixii loogu talagalay ciddii tacabkaa soo gelisay sidii loogu talagalay ayaa looga faa'iidayn doonaa noqon mayso wax ciyaar loo haladeeyo baabuurtaa waa la ilaalini ummaddaa loogu khadaami waa la ilaalini gacanta dawladdaa lagu hayn dawladdaa shidaalka ku shubi wasiirkii baa noo guddoomay waxaa maanta farxad weyn ii ah inaan looya cabdo anoo jooga shacabka reer Jabuuti guud ahaan xukuumadda Jabuuti ururka SOS Reader inaan ka guddoono deeq caafimaad oo aad muhiim u ah oo ambalaasyo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ururka SOS Reader shacabka reer Jabuuti xukuumadda Jabuuti dhammaantood waxaan uga mahad celinayaa sida wanaagsan ee walaaltinimada leh ee ay had iyo jeer ugu taagan yihiin in ay haddaanu nahay walaalahooda Somaliland nacaawiyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waa gaadhigii labaad ee saakala na guddoonsiiyey wasiirku wuu igu sharfay inaan guddoonsiiyo meeyarka Lughaya waxaan leeyahay waa ammaano xil bay naga saaran ilaalintiisa waxaa la guddoonsiiyey shacabka reer Lughaya gaar ahaan Geerisa waxaa la guddoonsiiyey shacabka reer Somaliland guddoon maayo arrin baan oo bishaarana waan idinku darayaa deeqda aynu ka helnay reer Jabuuti ilaahay iyagana wax khayr qaba ugu bedelo inana Allah inooga dhigo kuwii ka faa'iideysta sidoo kalena waxay dawladda Jabuuti ay gacan ka siisay shacabka Somaliland sidii ay u soo saari lahayd ceel biyoodii ay bulshooyin badan ku reeyeen iyagoo sidoo kale deegaano kala duwan u qaybiyay mashiinada biyaha soo tuura oo ka caawinaya wax soo saarka dhinaca beeraha iyo waraabka bulshada kaloo mahadnaqayaa madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa Khadar Xay waxaan kaloo mahadnaqayaa Maxamed Jaamac Ducaale wasiirku noo damqaday yaanu mahadnaqayaa mishiinkuuna soo gaaray waxaan ka salaamayaa dawladda Jabuuti dhammaan salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dawladdii jirta ee joogta Allah idinka dhigo gaar ahaan madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle waan kugu faanaa magacayaga waan ku faanaa dadka intaasaan dheernahay ilaahay cadowga ha idinka dabaalo haddana waxaan si gaar ahaaneed u salaamayaa Maxamed Jaamac Ducaale 99 isan ee magaca ilaahay baan kugu salaamaynaa deeqdan aad noo soo dirtay tii ugu horeysay ma aha waar aad baan haweenkii xarada haddaan degmada xarada haddaan aad baan u dhibaataysnayn aad baan u dhibaato qabnay haraad baa inaan adeerna laayay waxaan kaa guddoonay
mishiinka aad noo soo dirtay deeqdii horreysay mayna ambalaas baa ka horreeyey tii dhiig baxaysay iyo tii dhimanaysayba kaafiyey ayaa ka horreeyey war deeqdii u horreysay iyo tii u dambaysaba ilaahay inuunan ka dhigin ayaan kaala baryaynaa intaa iyo inka badanna waan kaa sugaynaa salaamayaa dowladayada Jabuuti ee sharafta leh baan halkan ka salaamayaa salaanka bacdi madaxweynaha iyaga yaan salaamayaa Ismaaciil Cumar Geelle yaan salaamayaa iyo marwadiisa Qadra Maxamuud Xayd ayaan salaamayaa salaanka bacdi hambalaaskii la noo soo diray maxamed jaamac iyo dowladayada Jabuuti noo soo dirtay waan ku baahi baxnay haweenaydii la geynaya ama boorame amaase dirdhabo waxa lagu daweeyaa dhakhtarka inta caruurteena idinku dhiganayso inta qabyada ah inta dhisan intaba dowladda ka mas'uula ceelka maanta laydin sameeyay dowladda Soomaaliland ba ka mas'uul anagu xisbi dawli baan ahay wasiirkiina horaan ahaa imqana xisbi dawlada ka tirsan fulinti baan ahay dowladda 4 saacad boo la shaqeynaa idinkuna waa u shaqeysay dowladda laydin shaqeeyana waa shacabka waxa laydin ka codsanaya ceelka laydin sameeyay in darajada laga dhawo laba dowladoodba ceelka way ku dhiban yihiin laba dowladoodba ceelka oo ka dhaxaysa dowladda Jabuuti kama gacan looyada qabtay ceelka labaadna kan iyada daryeelaysay ilaaha weyn ee waaxidka ee gurmadkeegii reer Jabuuti haddaan nahay iyo gurmadkii dowladda Soomaaliland halkan iskugu keenay ee noo suura geliyay ma garanaysaa ceelkaasi inuu dib u soo daayo oo dadka aradku aadka u hayay uu dib u waraabiyo ilaa noo suura geliyay baa mahad leh dhanka waxbarashada kor u qaadida aqoonta bulshada ee deegaanada xeebaha Soomaaliland oo aan badi heli jirin waqtiyadii hore waxbarasho dhameystiran waxa ay dowladda Jabuuti ka qaadatay door muuqda iyadoo hirgelisay dhismayaasha iyo qalabaynta dugsiyo waxbarasho oo tiradoodu dhan tahay ilaa 13 iskuul kuwaas oo isugu jira dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada saraba deegaanada laga hirgeliyay dhismayaasha dugsiyadaasi ayaa waxay kala ahaayeen deegaanka Saylac Xariirad Geerisa Xoog Faras teeb hadayta karuure lughaya damasha odawaadari gargaara galbeed iyo deegaanka Cabdiqaadir kadib markii ay haddaba dowladda Jabuuti hirgelisay dhismayaasha goobahaasi waxbarasho waxa ay haddana ka caawisay dhammaanba dhaqaalaha ku baxaya macallimiinta iyo daryeelka baahiyaha kala duwan ee dugsiyadaasi oo ilaa haatan ay ka taakulayso kolka hore mahad ilaahay baa iskale marka labaad mahad waxaa leh walaalihii ka jawaabay baaqi aan jeedinay carruurtaas oo mudayaca oo geed hoostii wax ku baranaya baaqi aan jeedinay walaalaha u jeedinay qurba jooga iyo reer Jabuutiba dhalinyartii ka jawaabtay ee u dhistay ubadkaas sida ugu qurxisay ee qalabka quruxda badan iyo iskuulka quruxda badan u dhistay ayaa mahadda koobaad iska mahadda labaad iska leh waxaana weeyaan horta ilaahay walaalahay tawfiiqda hayna waafajiyo tawfiiqda ilaahay hayna waafajiyo ikhlaaskana ilaahay hayna adkeeyo waxaan meesha iskugu nimidnana de walaalnimadeena weeyaan wax wada qabanayna ilaahay hayna adkeeyo qulubteena ilaahay hamideeyo qulubteena ilaahay hamideeyo fikradeenna ilaahay meel midaad xagga khayrka ha u badiyo fikradeenna ilaahay xagga khayrka ha u badiyo wax wanaag fikradeenna insha Allah wax aakhiriya adduunka bay naafaa waayo waxa la dhigay hadaad beerti wa sadaqad aana goynbu ku jiray sadaqatul jaariya la yiraahdo iskooladan iyo waxa la dhisay wax lagu hoos barnay waxyaabaha aan baabi'in weeyaan qofka ilaa aakhira u socda qofka harsada qofka wax ka barta inta ay waa hal ducay horta ilaahay noo aqbalo horta waxa mahad iskale walaalihiin halkan waxaan marnay sanadkii hore oo ku marnay guddi anagoo ah ku meel gaar ah wali oo aan 6 bilood ku soo shaqeynay waxaan marnay ciyaalkeena yar yar oo waab halkaaya ku dhiganay waxaan u yeernay gabadha oo gudoomiye ka ahayd halkan xoog faras iyo macallin inaan macallina oo halkaan ugu nimidna waxay noo warrameen geed waabka hoostiisa adeerkaysiin waxa yaala shirikaana yar oo afka laga gogooyay iyo daasada busbusan ciyaal ku fadhiistaan waxayna halka waxa ku dhigtay ciyaal tiradoodu inta tahay kolka ciyaalku ma fadhiin casar bay hayaan oo way rawaxeen waan joogsano adeegtiin baan nidhi waabka hoostiisa waxay dheen daasadaha yar ee afka go'aan li caagaga waxa ku dhigtay ciyaal tiradoodu inta tahay laba macallinna waan ku joognaa ciyaalka hameenkii kolkay subaxii kolkay soo kala lahaan meeshan waxa galeeyaan dhukan wuxuu leeyahay garare iyo abeeso bahala u si hoos kala beeyay subax kasta amba ilmihu la qaniinay baa la keenaa amba de qofkii subaxii soo kala iyo daasadaha wada faydfayday waxa taa nagaga dareen beeran subuurada wax ku qorayno roobku markuu diyo ubadkaaba way isla masaxataa ubadkuna buugaanta way ka qoydaa iyaguna way wada qoyaan
haddaba xidhiidhka somalilan iyo jabuuti oo ahaa mid 20kii sane ugu dambeeyey hadba heer maraya ayaa wakhti xaadirkan la odhan karaa inay yihiin dalal shacab ahaan iyo dowlad ahaanba si waafiya isugu tiirsan islamarkaana uu ka dhexeeya dhaqan iyo iskaashi shicib oo ay ku wada nool yihiin shacab walaalo ah. waxyaabo fara badan baa laga hadlay oo la xidhiidha danaha labada dal sidii la isaga kaashan lahaa dhinac walbaba, dhinaca bulshada, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca maxaa idhahdaa xagga nabadgelyada laftigeeda. waxaa kaloo ka wada hadalay arrimo la xidhiidha guud ahaanba gobolka nabadiisa iyo mataqaanaa midnimadiisa iyo soo dhaweyntiisa. si wanaagsan bay noogu dhacday, shirkaas noogu dhacay, jawi wanaagsan uu ku dhacay. caadadu waxay ahayd in madaxweynaha Soomaaliland halkan ay noqoto wadanka ugu horeeya uu yimaado isagoo ku yimi martiqaad uu fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti. si wanaagsan ayaa naloo soo dhaweeyey, aad iyo aad u qiimo badan. aadna waan uga mahad celinaynaa madaxweynaha iyo wasiiradiisa, wasiirka arrimaha dibadda iyo shacabkaba sidii wanaagsan ee milgada lahayd ee naloo qaabilay. waxaan rajaynaynaa inuu noqdo bilow maxaa idhahdaa cilaaqaad ka sii xoogsama amba ka sii adkaada kii hore noo lahayn insha Allah. madaxweynaha Djibouti uu ku casumay madaxweynaha Somaliland waa booqasho shaqo in labada dal ay jaarka ah ee walaalaha ah ee wax badan ka dhaxeeyaan inay isu yimaadaan oo wada hadlaan oo arrimaha caalamka iyo iyaga danahooda iyo wixii cooperation iyo iskaashi ee ka dhaxeeya ay ka wada hadlaan mar walba. intaasoo bayna ku salaysan tahay. mudane madaxweyne Muuse Biixi madaxweynaha Somaliland booqashada uu ku yimid Djibouti waxay tilmaam iyo tusaale u tahay horta qadirinta labada dal iyo labada shacab ay isku qabaan iyo kolkii la doortay kadib booqashada ugu horeysay ee dibadda ugu baxay oo Djibouti uu ku booqday waxayna tusaysaa inay maaragtay xiriirka labada dal uu yahay xiriir aad u fiican. labada dal waxay iskaashi ay badan ayay doonayaan inay maaragtay ay hirgeliyaan. iskaashigaasina kii adeeg bulsho maahine ku dhaqaalo oo fiican ayaa maanta noo muuqda. kolka waxyaalo badan baa wadaagnaa, baddaan wadaagnaa iyo dhulkaba dee ganacsiga haddii laga hadlo xuduudan sidii maaragtay si fiican la isku furi lahaa iyo dadweynaha labada dadweynihiisii sidii dee maaragtay uga tallaabi lahaa xuduudana waa laga wada xaajooday. iskaashiga nabadda iyo nabad sugintana labada dal waa iskaashi loo baahan yahay. la dagaalanka burcadbadeedka iyo argagixisaduwa taasina horumarka labada dal ayay maaragtay ayay qiriqir ay geliyaan. Somaliland qaybaha kala duwan ee shacabka ayaa faham weyn ka haysta doorka dowladda Djibouti ay ku leedahay garab istaagga walaalahooda Somaliland iyagoo tibaaxay taageerada dhaqaale iyo duruufaha kala duwan ee ay kala qayb qaataan shacab weynaha iyo dowladda Djibouti. waxaana aragtida aqoon-yahanka dhalinyarta siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedkuba tahay sidan. xiriirka haddii Somaliland iyo Djibouti la yiraahdo runtii wax la soo koobi karay ma waa xiriir aad u qoto dheer, waa xiriir ku salaysan isir iyo wadaag iyo shacabka labada wadan oo ah dad mid ah oo waxa kaliya kala qaybiyay waa intii gumaysiga xuduudka gumaysigu dhigay. marka xiriir taariikhiya oo dheer oo ehelnimo oo qoysnimo ayaa horta Djibouti iyo Somaliland marka ugu horeysa ka dhaxeeya. Ismaaciil Cumar Geelle runtii waa madaxweynaha kaliya ay hadda Soomaali waxa weeye dhamaantiid waxa weeye isku haya. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle shakhsiyan aad baan madaxweynaha u qaanaa, waa marar badan baan la kulmay. waa madaxweyne caqli badan oo jecel inay Soomaali wanaag iyo nabadgelyo ku wada noolaato oo damciisu yahay Somaliland iyo Soomaaliya noqdaan dad walaalo oo aan iska hor iman oo aan dagaal dhex marin. Djibouti iyo Somaliland runtii marka la yiraahdo door intee lag bay ka qaataan xagga horumarka siyaasadda istaakulaynta. waxaan taaban karaa runtii oo taariikh la milaawana ugu horeysa awalan Somaliland markii Djibouti xornimada qaadanaysay halkan looga hiilinayay marka kacdoonadii ugu badnaa markii xornimada ay halka ka qaadanay halkii looga gurmaday Djibouti inay xorriyad hesho iyo dawladnimada ay maanta haysato shacabka Somaliland ba kow ka ah. marka dee xubin firfircoon bay ka hayd taa markaynu ka soo gudubno aynu soo noqono
wakhtigii aynu somalilan iyo soomaaliya kala baxeen dagaaladu dhaceen ee aynu baxnay runtii ama culaysyada siyaasigiina saaraayeen dhaqaale ahaan waa meesha keliya ee ganacsatadii reer somalilan u dhalatay ay dhaqaalahoogii ku badbaaday jabuuti bay ahayd meesha ay ku koreen dhaqaale ahaan jabuuti bay ahayd marka laga yimaado taan dhaqaalaha koritaanka mar labaad markii aynu waddanka soo galnay ee aynu qabsannay aynu dowladnimada dhisaynay waxaan aaminsanahay haddaan jabuuti jirin inaan somalilan maanta dowladnimada haysato runtii iyo nabadda aynu haysanaa inaanay aslaaxdeen laba sababood dartood mid waxa weeyaan markii 1993 ina cigaal waddanka aynu dowladdii dambe dhisnay ee dowladdu shacbi noqotay ee ina cigaal qabsaday dhaqaale maynaan hayn adduunna maynaan hayn meesha aynu ku badbaadnay ama dhaqaalihii dibadejinta lagu sameeyey somalilan lagaga sameeyey dhaqaalihii ciidamada lagu qaramaynayey lagu dejinayey meeshii aynu ka helay dalka jabuuti bay waxaana sabab u ahayd inagu baanan caalamiya maynaan lahayn waxayna caawiyey tijaartii ku badbaaday jabuuti dowladnimadeedii ku badbaaday ayaa suuro gelisay in baanankii caalamiga ahaa ee jabuuti deganaa in laga amaahdo oo laga qaato oo tijaartii somalilan markaa u badbaaday ay ka soo qaado lacagtii dowladnimada somalilan dhidibada loogu taagay xaafadda somalilan ama soomaaliya iyo somalilan labadaba inay ka waantoobaan hadallada xanafta leh ee ay ka sii daayaan gaar ahaan tiifiyada ama somalilan ahaada ama soomaaliya ahaada hadallada xanafta leh ee lagu burburinayo dowladda jabuuti inay ka waantoobaan baan u sheegayaa oon uga digayaa waxaa leeyahay looma baahnaa in tiifiyada somalilan iyo soomaaliya ka baxaya ay noqdaan hubkii loo adeegsanayay in lagu burburiyo dowladda jabuuti somalilan iyo jabuuti waxay isu yihiin allah yarxamu xaaji xasan buuleed madaxweynihii koowaad ee jabuuti wuxuu ku dhashay geeriso oo somalilan madaxweynihii iga horreeyey ee somalilan siiraayo isagoo jabuuti ku soo socdaa iskuulka laga qoray saylac madaxweynihii ka horreeyey daahir riyaale kaahin hooyadii waa reer jabuuti anigu jabuuti baa ku koray markaa dadku intay isu yihiin intaasaa iskaga filan dhallinyarada iminka laga yaabo inay technologigu ku foorriyey kombyuutarka iyo mobaylka iyo internetka waxaan u sheegayaa jabuuti iyo somalilan geedgeed qof iyo qoysqoys inay isku mid yihiin si walba ifka uga soo baxay anigoona facbaran nicawdiisa udugale kiigu qariyo warigaygo mar kasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kala soco wararkii u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso